saddexdan shay ayaa ugu badan waxyaabaha dudumiya reeraha dhisan ninka iyo naagta isqaba ilmaha leh saddexdan shay ugu badan waxaad maqlaysaa heblaayo iyo hebel 10 caruur isku dhalay ayaa kala tagay maxay u kala tageen saddexdan midkood ayay u kala tageen Soomaalian garan soo dhaw intaan muuqaalka guda galin ha ka iloobin inaad like saarto sidoo kalena aad share gareyso page-kana follow waa mahadsantahay saddexdan shay oo ku sheegi doono waa saddexda shay ugu badan ee reeruhu ay ku kala tagaan markaad weydiiso laba kala tagtay maxaad ku kala tagteen hebelow ama heblaayo markaad tiraahid waxay ku leedahay ama uu ku leeyahay sidaas dhacday kan koobaad waxa la yiraahdaa waan ka shaki qodobka koobaad waxa la yiraahdaa waan ka shaki ninkii odaga ahaa ee xaafada uu shaqo tagaa subaxii suuqaas uu shaqo tagaa ama waa harqaan leh ama waa tukaan leh ama waxa weeyaan qudaarta iyo yaanyada iyo xaas u gada wax ay ahaataba ninkaas waa shaqo tagaa barqadii markii la gaaro ayaa la soo waca inantii soo wacaysa sawa mashquul malaha macmiil oo iswacayaan oo maaragtay wax ka raba dhiq way xirantahay inantii habeenkii markuu guriga yimaado baa leeyahay hebel waan ka shaki gabigaaga waan ka shaki kan telefonka laga qaada bashqadiha la eegaya maanta oo dhan lacagtii uu gaari raaca ku tuuray maqaayadii uu ka qadiyay waxa soo dhama horta la fiirinaya nambarkaas waa la wacaya waxa la leeyahay yaata si sheeg haday gabari qabatana way qaraxday ama si bareeraha u leedahay yacni kan telefonka waa baara ama si qarshoodi u baaraysa halkaas muran baa ka imaanaya nambarkii telefonkii maxaa nambar ugu wacday maxaad u qabatay sidoo kale waa la soo wacayaa ninka odaga ah nambar baa soo waca isla markii waa la qabanaya horta gabar haday noqoto naag haday noqoto way ugu daran buuqii iyo qayladii ugu weynaay foolkaani halka ka qarxaya hadiise nin kale raga uu noqdo waxa la leeyahay ma joogo ama uu jiifa bal dad muhiim u ahayd baa waxa laga yaabaa in halka looga baajiyo leeyahay uu jiifa adigu al-amuum waan ka shakiyada sabab ka timid ayaa lagu dagaali karaa gabadhii waa sidaas ninkii odaga ahaa marka uu shakiyo sidoo kale tukaanlihii ay u doonatay raashinka oo caanaboolada iyo baashi ilmaha loo xiri jiray oo xafaayada la dhigi jiray buskud yar waxa noocaas ay u doonatay bay ayar ku soo daahaysa markaas uu leeyahay ha u soo dhaad intaas ma tukaanka joogto ninka tukaanlaha ba ka shakiyo leeyahay gabigiisba waa ka bedelay tukaan kale adeega uga doonaya oo soo qaaday adigu shaki noocaas halka shaki ka yimid ayuu dagaal ka qarxi karaa waa qodobka koobaad qodobka ugu badanna waa qodobka labaad waxa weeye waad ugu yaraysay maxaa tahay waad ugu yaraysay waxa weeye biil baa la bixin jiray ninkani wuxuu ahaa nin iska ladan mishaar fiican buu ku shaqayn jiray kambani yar oo isagu uu aasaasto lahaa ama uu madax ka yahay way u kala kacsaneed heer saraydo u marayso lacagtu sida uga difqayso u kala bedelayo waa shiiday ninka odaga ahaa markii uu shiiday ninka odaga ahaa wuxuu bilaabay inuu biilkii iyo lacagihii uu bixin jiray uu yareeyo si uu yacni isugu balance gareeyo waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya ilaa lacagtii way yaraatay oo soo gali jirtay isaga halka markay joogto waxa dhacaysa gabadhii dhaqaalaha iyo hantida badan ee indhaha laga gelin jiray oo lagu filfilqi jiray gabadhii u baratay in waxa dhacaysa ay ku qanci weyso lacagta yarta kadibna ay tiraahdo maxay tahay waxan walaale waxba isbedelay oo shirkadii iyo wixii shaqadii way kacday oo maaragta waxaas adeer anigu ma maqli karee hawshu sidii ay ahaan jirtay ma ku wadaysaa mase ma ku wadaysaa soo istaagaya ma ku wadi karo sababta ma bahayaba qoftan haday saahan qof xishoonaysa oo reerkeeda inay dhaqata si rabta hadaanay ahayn way ku adkeynay waxa leedahay maya qoomtigii ay qabsatay joogaysa ninkani asxaabtiisa iyo waxgaradkiisa iyo walaalihiisa iyo waalidkiisa la tashanaya haye waxa leeyahay inta sirta qof ugu dul qaadan waaye hadhowtiina wax kale ugu dul qaadan maayo qoftan iska diraalay sidaas ugu diraya waa qodobka labaad oo ugu badan qodobkan saddexaad ugu dambeeya waxa weeye waan kugu walacay gabadhii xaaska ahayd ba barwaaqo u timi ilaah baa cirka wuxuu uga keenay barwaaqo cunug baa uur galay markaas bay walacday islaamuhu waa u kala duwan yihiin midna ninka way jeclaataa markay walacdo midna way nacdaa gabigiisba inay aragto bay diidaa waxa daran marka midda dadku waxay yiraahdaan midda jeclaataa daranoo una qabatay ku sameeyay inuu shaqo tago inuu hawl kala qabto bay diidaa laakiin waxa daran midda nacda sababtoo ah waxa ka imaan kara ayaa ka daran way nacaysaa waxay leedahay aragaaga maar karo iga qari waalidkiisa leedahay ninka ma rabo gabigiisba hal iga furoba hal iga wado markaas bay leedahay ma waxaan fool xumada badan si u yaala arag waxaan fool xageen jiraysa ayaan dib isugu laabatay waxay leedahay ma waalna markaan waxaan fool xumada badan aroosan fil darrada badan dabeecadda xun waana iyada wax kale ma aha dhibka dhan xageedu ka socdaa xaginta fahmaan hawsha bay ka agbadashaan gabigeedba waa ka tagaan meel kale aadaan raggaas markii gabadhu walaci iyo wixii ay ka soo baxdo bay maanayaan markaas soo dhaweynaysaa sidii madaxweyne
ay u soo dhaweynaysaa leedahay xabiibi xayaat waa kuu xiisay xaggii iga aaday waa waray howl aan inaba caadi ahayn bay u gelaysaa mana ahaada waa naagtii dee iyadu burisa ninkan ee uu meesha ka joogi waayey ragi sidaas bay u fahmaan baasha waa ka agbedeshaan ragna aflagaadadeeda iyo waalid caayga mogta markaasoo kale xataa ma isxakamayn karto waalidkiiba caayaysaa hadday rabto isagii ku dhammaanaysaa ragna inta u adkaysan waayaan bay yidhaahdaan yaa maaniga faarihiga gaarkaa soo faragashatay waalidkiibaa caasi maanigiibaad caayisay yaa maana haddii gacan qaaday inta u adkaysan waayaan bay madaxa uga dhuftaan wixii lagu kala tegi jiray ee dalaaqada ahaa ay madaxa uga dhuftaan gabadhii sidaas bay reerkeedii ku burburisay isaguna wiilkii ku burburiyey wax lama xeerin la kala teg gabadhii markii walacii ka baxdo cunugii ay dhasho bay soo garwaaqsanaysaa leed allah maxaa qaldanaa bay leedahay de waxaa qaldanaa waa la wada ogyahay wariga dhammaantii saddexdaas qodob ayaa ugu weyn waxyaabaha ragga iyo dumarka isqabaha ay ku kala tagaan 10 sano iyadoo isqabeen 8 cunug iyo 5 cunug wax ka badan ama 10 cunug haysta ay kala tagayaan aag waxyaabaha lagu kala tagay waa saddexdan midkood waa maadsantahay wax kale jira in lagu kala tagay haddaad og tahay noo sheegan dadka ka waaninay mar kale hadda halkan soo gaartay muuqaalka ha ka iloobin like saarto like horena ha ka celin dad hore like u saartay sidoo kalena share garay ra'yigaagana la wadaag wassalaamu calaykum